ka tirsan baarlamaanka dalka Ghana ayaa u isticmaalay Harry Maguire inuu ku weeraro siyaasi ay iska soo horjeedaan xilli laga dooday miisaaniyadda dalkaasi. Isaaq Adongo ayaa ka yaabiyay xildhibaanada baarlamaanka iyo taageerayaasha kubadda cagta kadib markii uu tusaale u soo qaaday xiddiga Manchester United ee Harry Maguire. 50 sano jirkan oo loo doortay baarlamaanka markii ugu horeysay sanadkii la soo dhaafay ayaa weeraray madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi iyadoo laga dooday miisaaniyadda dalka Ghana ee sanadka 2023. Xildhibaanka ayaa kadib tusaale u soo qaatay Harry Maguire si uu muujiyo in madaxweyne ku-xigeenka uu yahay shakhsi aan waxba kala ogeyn. Masar Adongo ayaa yiri haddii aad tahay taageero kubadda cagta waxaa jira ciyaaryahan Ingiriis oo la yiraahdo Harry Maguire kaasi oo ciyaara Manchester United waa daafaca. Markii uu joogay Leicester waxa uu taakalo ku qaban jiray cid walba, jirkiisa ayuu hordhigi jiray wax walba, waxaa loo arkay daafaca ugu fiican ee dunida. Manchester United ayaa soo iibsatay waxaana uu noqday halista ugu weyn ee kooxda Manchester United. Waxa uu taakalo ku qabtaa ciyaartoyda kooxdiisa wuxuuna caawiyaa kooxda ka soo horjeeda. Mudane gudoomiyay xitaa marka kooxda ka soo horjeeda ay gool dhalin weydo Harry Maguire isaga ayaa u dhaliya. Mudane gudoomiye waxaad xasuustaa in wadankan aan sidoo kale ku haysano dhaqaaliyahan Harry Maguire oo kale kadib waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in madaxweyne ku-xigeenka Dr. Mohamedou in uu goolal iska dhaliyo sida Harry Maguire oo kale. Xildhibaanadii joogay golaha shacabka ayaa qosol la dhacay halka taageerayaasha kubadda cagta ay muuqaalada si weyn ay ugu wadaagayeen baraha bulshada.